الدولة وفقنا للمسؤولين كوزارة العاقبات بدونها نورها كسياشة والدولات الدولات guddiga boorka iyo maamulka sare ee jaamacadda Galaasma macallimiinta jaamacadda Galaasma waalidiinta dhammaan ardayda gabdhaha iyo wiilasha ee qalinjibinaysa maanta oo aan xafladooda u joogno waalidiinta dhalinyarada mahad saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام وحنا نقول الآن في أحسن هاي كسر جمع حفلة الجميلة دفاع النوريسي جامعة البلاسمة مجال التجارب والله مالها وعن تاريخ هاي وحنا مالها وعن تاريخ هاي يعني لما يفهموا فرحة يقول شيء كأجرتين أنت يا سودين وحرشة كم تقوال جامعة جامعة براسل وحين الله لا يمكن همبلي وحنا راعينا سجارة علوم العيون والدينها يقصون ولايتين ووقت بدل يوقش في سيء إلى ذلك المعنى أسوق جامعة وحنا يا الوالد كاتوسا أهم هي مان هم كانوا سجاري له وحنا وعينا أمها تعلو على الوالدين الأمان والوامسين السياسة كله وحنا وعينا أمها تقوم معلومين تا كانت ممكن كقالتي إلى يسوع جارسيا هيك ما كسوع جارتين أيوة كل شقينا يقولون كلدون أو كجرة ديانة الدهان معلومين تمام وحنا هاي همبري وما تنتهي سنة أرجو الاستاكين أرجينا كروب البدن مع وصوصاتين سنة كمان قبضان جامعة البلاسمة بدومية جامعة السيوطية الشرعي وحمرات كتير إني سنجرين جامعة لم يدع ذلك أي سميسي إني جوابها فوق أما الديانة فوق أو وحبرشنا لجماعة إني جارسيون أي جارسيسي جامعة البلاسمة أي تاي جامعة بنوريسي أي دوشي سيدة هذا الشيء يا أخوكم بوكا graduation وحنا إني بكرنيه إن تقولي فربنا وقت السنة تمام دولارينا إني حاولوا أولد البلاد هذا سكان أولياء إن صوص عرب وحبرشة جارسيون تمام ذات الصومالية يقولوا ديجانا سكان محلها ما مكسرة جامعة أو جود ديجا يبدأ الكبير إني حاولوا سيفران محلها همبليو وحاب فريتين أما إحنا قالتين horumarinta ummadda Soomaaliyeed iyo soo saarista dad tayo leh oo waxbarashadooda iyo aqoonta lagu faani karo aad u mahadsantihiin sida ay ka warqabtaan wasaaradda waxbarashada dowladda koonfur galbeed waxay bilaabeen juhdi ku bixinaysay inay horumariso sare u qaaddo tayada waxbarashada guud ahaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan waxaan xoogga saaraynay maadaama waxbarashada asaasiga laga maarmaan tahay arday aan soo marin waxbarashadaas asaasigaana uusan u gudbaynin marka hore laga tayeeyo waxbarashada dhammaan dugsiyada iyo tacliinta hoose iyo dugsiga sare in sare loo qaado alxamdulilah waxaa lagu guulaystay in wax badan la hagaajiyo maadaama dadaalka iyo shaqadu ay tahay mid joogta ah oo mar walba jiraysa haddana waxaa inoo suurtagelay inaan wax badan aan ka hirgelinno guud ahaan koonfur galbeed oo tacliinteeda isbedel muuqda iyo isbedel wanaagsan oo horsocda laga sameeyay sida aan ku qabno tacliinta sare waxay labaad tahay bixinta xirfadaha ku qeexan qorshaha horumarinta waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya 2021-2026 oo ay wasaaraddu ay hadda ay hirgelisay ama ay soo bandhigi doonto bisha soo socota taas oo ku salaysan in jaamacadaha guud ahaan ka dhisan dowladda koonfur galbeed ay noqdaan jaamacado xoog saara ay baarista iyo inay raacaan ardayda ama ay bartaan koorsooyinka la ahmiyadeeyey oo ku qeexan ama ku jaangoosan baahiyaha
gaarka ah ee dhaqan dhaqaale ee ka jira dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Sidaas oo kale waxaa xusid mudan in xildhibaanka uu soo jeediyey talooyin ay ka mid ahayd in deegaanadan oo koonfur galbeed beeraha iyo xoolaha ay si gaar ah maadaama ay ku roon yihiin ay deegaanada kale kaga horeeyaan ama ay ku fiican yihiin. waxaan bogaadinayaa jaamacadda Zamzam oo ah jaamacadda ugu muhiimsan hadda dhinaca beeraha xoogga saartay. saas oo kale ugu filna keliya jaamacadda Zamzam waxaa la dhahaa jaamacado fara badan oo adduunka waa aragteen waxyaabaha hadda ka jira ama dhibaatooyinka ka jira waxaa waaye cunto la'aan iyo biyo la'aan iyo muxuu ahaay xoolo la'aan. marka waxaan rabnaa xoolahaas iyo beerahaas aan haysano cilmigii lagu beeri lahaa lagu kobcin lahaa dadkii maaragtay in la baro in xoogga la saaro ayaan rabnaa. wasaarad ahaan waxaan codsanaynaa in ahmiyadda gaarka la siiyo sidii loo soo saari lahaa jiil wax badan ka bedela. maanta haddii la dhaho imise arday ayaa public health shahaadin haysata waxaa la arkayaa kumanaan qof ama waxaa la helayaa dad aad u fara badan oo shahaadooyinka haysta cilmiga caafimaadka cilmiga beeraha cilmiga muxuu ahay dhaqaalaha in la bartilmaameedki karo. laakiin waxaa la dhahaa in ahmiyadda koowaad iyo ahmiyadda labaad la siiyo cilmiga beeraha iyo wax soo saarka xoolaha iyo dhaqaalaha. qorshayaasha wasaaradda waxbarashada u degsan dhinaca waxbarashada tacliinta sare waxaa ka mid ah in dib u eegis lagu sameeyo kaabayaasha tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed si loo toosiyo loona daadajiyo adeegyada hadda jira loona abuuro kuwo cusub oo fursad u noqon kara dhammaan dhalinyarada ku nool deegaanada koonfur galbeed. wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay dhiirigelinaysaa maalgashiga in lagu sameeyo waxbarashada in la maalgeliyo gaar ahaan waxbarashada gaarka loo leeyahay in sare loo qaado tayadeeda in kor loo qaado qeybaha ka maqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeedna xoogga la saaro. waxaa ka mid ah qeybaha ka maqan markaan leeyahay waxaa ka mid ah jaamacaddu marka aad tagtaan oo koonfur galbeed ku yaala waxaa aad u yar jaamacad bixinaysa kulliyadda injineeringa qeybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd mechanical engineering hadday ahaan lahayd telecommunication hadday ahaan lahayd electronic hadday ahaan lahayd petroleum waxay rabtaa noqoto. waxaa aad u yar jaamacad bixinaysa waxaan dhihi karaa ma jirto ama aad u kooban tahay marka laga reebo computer iyo IT. marka waxaan codsanaynaa dhammaan jaamacadaha inay xoogga saaraan cilmiga waxtarka u leh nolosha bulshada wax ka bedelaya. wasaaradda waxbarashada waxay dhiirigelinaysaa in cilmi baaris dalka ku habboon ee jaamacadaha sameeyaan xooggana ay saaraan hadday ahaan lahayd beeraha xoolaha iyo wax soo saarka iyo dhaqaalaha intaba. wasaaraddu waxay xoojinaysaa hubinta iyo tayada waxbarashada tacliinta sare. sidaa ogtihiin waddanka wuxuu leeyahay nidaam federaal oo qaatay waxaana hadda gacanta ku hayo wasaaradda waxbarashada federaalka hay-ad ay samaysay oo loo yaqaano National Education Committee. sidaas la mid ah waxaa laga maarmaana wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedyada koonfur galbeed ama guud ahaan waddanka inay helaan ama ay ka warqabaan waxbarashada ay jaamacadaha bixiyaan tayadooda iyo heerka ay gaarsiisan yihiin. marka waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu ay ayagoo kaashanaysa bahda waxbarashada qeybaheeda kala duwan macallimiinta maamulayaasha iyo dhammaan dadka jaamacadaha hududka inaan wax badan ka bedeli doono tayada waxbarashada heerka sare ama jaamacadaha deegaanada ka jira. si tayada sare looga qaado marka wasaaradda waxay codsanaysaa in la ballaariyo dhismayaasha xarumaha. waxaad arkaysaa meel kambas ah oo aan ku habbooneen micnaha in arday ay wax ku bartaan. waa dareemi karnaa inay keento duruuf iyo dhaqaalaha oo aad ciriiri u ah. laakiin waxaan codsanaynaa in jaamacad kasta ama qof kasta uu ku fikiraayo inuu waxbarashada sare uu qayb ka qaato in environmentkii loogu talagalay waxbarashadaas ay ku habbooneed inuu sameeyo hadday ahaan lahayd kambas ku filan ardayda inay wax ku bartaan oo laga gudbo ciriiriga ardayda wax lagu baraayo hadduu ilaahay. wasaaradda saas oo kale waxay codsanaysaa in la ballaariyo xarumaha agabka waxbarashada saas oo kale
waxay codsanaysaa wasaaraddu in tayada shaqaalaha ka shaqaysa jaamacadaha iyo macallimiinta dhammaan in sare loo qaado ayadoo lagu fikiraayo guud ahaan in ahmiyad gaar ah la siiya ayaan codsanaynaa si gaara waxaan rabaa inaan lagu mahadceliyo jaamacadda maamulkeeda balaasma iyo macallimiinta dhammaan waxaan halkan ka caddeynaynaa in wasaaradda waxbarashada markii jaamacadda la aas-aasay balaasma markii la fulaayay ay codsatay in 10 arday jaamacaddu ay ku dhigtaan lacag la'aan ayna jaamacadda maamulkeeda ka aqbaleen in 10kaas arday ay ku dhigtaan si lacag la'aana maantana aan joogno aan ka qaybgalayno qalinjibintii ardaydaas iyo inta guud ahaan arday ee la siiyey waxbarashada lacag la'aantaana way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka ardaydaas marka haddii ay danaynayaan waxaa laga yaabaa qof kastoo waxay ku xiran tahay sida hadafkiisa nolosha uu degsaday ayay ku xiran tahay ardaydaas marka hadday danaynayaan inay waxbarashada hore u sii wataan dhammaan oo ku dhiirigelinaynaa laakiin si gaara ardaydaas lacag la'aanta lagu soo baray wasaaraddu waxay ka kaalmeynaysaa inay siiso waxbarasho oo master ah oo lacag la'aan ah oo dibadda ah bilahi waxaan ka codsanaynaa marka inaad ka warqabtaan ama aad la socotaan xafiiska scholarshipka ee wasaaradda waxbarashadu ay leedahay waxaa ka mas-uula wasaaradda inay siiso deeqdaas waxbarashada hadday noqoto sanadkan ama sanadka ku xiga abdullaahigo marka qof kasta oo danaynaayo waxaan codsanaynaa inuu maaragtay wasaaraddu imaamo uu soo raadsado waxaan kaloo rabaa inaan kusoo koobo hadalka qofka markuu wax barto waxaa la rabaa tayadiisa in laga arko tayada waxbarashada iyo dadaalka la soo geliyo waalidka macallimiinta iyo jaamacadda uu ka soo baxay in laga dhex arko bulshada dhexdeeda hadda sidaan aan aragnay balaasma university waxay muujisay dadaal iyo juhdi fara badan sida aan ka aragnay waxay qayb ka yihiin qaybaha bulshada oo dhan bay qayb ka yihiin waxay ku jiraan dowladdii waxay ku jiraan hay'adihii kale ee waddanka ka jiray iyo dhammaan macaahidda ama mas-uulada ama jaamacadaha intaba waxay ka yihiin dad hormuudka ah oo ka muuqda ay yihiin marka laga hadlaayo marka waxtarka ama efficiency-ga waxaa la dhahaa inputka marka laga hadlaayo qofka injineera fahmaayo inputka marka adiga aad wax geliso oo aad isku qaybiso outputkii ka soo baxay ayaa waxaa loo yaqaanaa efficiency marka waxaan aaminsanahay jaamacaddu inay dadaal fara badan ay gelisay inay soo saarto dad tayadina waxaa markhaati ka maanta dadka oo mas-uuliyiinta ah oo ka dhex muuqda bulshada iyo muxuu ahaay sida ardayda hadda la soo saaray maanta ee qalinjibinaysa ay ugu muuqdaan ama marketka sheerkooda ay uga qaataan waxay tusaale u noqonaysaa dadaalka fara badan ee jaamacadda ingiriisay iyo ethiopia marka dhammaantiina waxaad tihiin jaamacadda waxaa og tihiin ambassadors ama dad wakiilka ah jaamacadda haddii ay idinka ficnaantaan jaamacadda iyo macallimiintiina mahaddaas iyo ficnaantaas iskale haddaa idinka xumaataan oo dad tayadooda ay hooseyso idinka aad noqotaan mana aaminsanay inaad saas tihiin tayadiina way saraysaa waxaan aaminsanahay inaad ka dhex muuqan doontaan guud ahaan dowlad koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya intaba waxaan mar labaad ku hambaliyaynayaa ardayda iyo waalidiintooda dhammaan hambali ayaa idin leeyahay waqtigoo kooban oo maaragtay dadka xoogaa waadaanay waxaan rajaynayaa in hambaliyadaas maanta aan halkaan u joogno aan kusoo koobno halkaan waxaan rabaa marka inaan kusoo dhaweeyo saaxiibkay إذا ما استمتعت مدير الوزير شكرا إلى الجماعة كلمات كأمرت كيك ومن ترجع من تاسع لي بدنيا قطع أردد كيك بانجبيا هيدا باجوان كبيرو